kulan wanaagsan daawade waxaan ku eegi doonaa sheekadan Haykal Maxamed oo safar degdeg ah ku yimaaday magaalada Muqdisho. Haykal oo si degdeg ah ku yimaaday magaalada Muqdisho oo haddana safar aad u degdeg ah ku yimaad. Si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanayo gambaleelkana u furanayo muuqaalkana like la wixii fikir aad ka qabtid qaybta commentiga noola wadaag. Haykal Maxamed oo safar ah degdeg ah ku yimaaday oo hadda magaalada Muqdisho soo caga dhigtay maadaama boqorada isteelka 3 bari ka hor arooska Habi intuusan dhicin ay ka soo tagtay magaalada Hargeysa ay Haykal kaligiisa ugu soo tagtay si arooska Habi ay ugu qayb gasho. Boqorada isteelka oo aanan laabanin dalkaasi Hargeysa aanan ku laabanin Haykal oo hadda safar degdeg ah oo safarkiisa xataa baraha bulshada laga sheegin ama laga shaacinin in uu magaalada Muqdisho ku soo socdo ayuu safar degdeg ah ugu soo kordhacay boqorada isteelka uuna ka soo degay magaalada Muqdisho. Haykal Maxamed oo qabo Maariya Abshir oo u taqaanaan boqorada isteelka oo gabar aan ka baraha bulshada oo haddana safar degdeg ah ku yimaaday magaaladaas Muqdisho safarkiisana uuna soo shaacinin oo kaliya la arkay muuqaal TikTok-giisa soo dhigay markuu magaalada Muqdisho soo caga dhigtay maadaama boqorada isteelka 3 maalin ka hor arooska Habi oo gabar saaxiibteeda ah ay ka qayb galaysa ee sidaas darteed ee dalkaasi Hargeysa ugu soo tagtay Haykal kaligiisa. Haykal Maxamed oo asigana aaba shaacinin maadaama uu ku soo socdo Muqdisho ama qofba u sheegin ka soo kordhacay boqorada isteelka ama Maariya Abshir sidaad u taqaanaan ka soo kordhacay safar degdeg ahna ku yimaaday dalkaasi magaalada Muqdisho. Haykal oo hadda boqorada isteelka oo soo dhaweysay oo haddana uu hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Haykal oo hadda asigana dhankiisa ah qoftiisa u xiisay Maariya Abshir oo degdeg ah si aad u degdeg aanu ku yimaaday dalkaasi magaalada Muqdisho oona ka soo degay garoonka aadan cadde. Haykal Maxamed oo boqorada isteelka maadaama ay ugu soo tagtay gabadha saaxiibteeda in ay galbinayso laakiin asigana oo qoftiisa mooganaa waayay oo boqorada isteelka jacayl uu u qabo uu kadis iyo lama filaan ugu dhigay maadaama uu u soo sheegin kadisna ay ku ahayd imaashiisa. Dad badan oo baraha bulshada caan ka ah ay bajeclaysan lahaayeen hadduu soo sheegi lahaa in ay boorka ay ugu sii hormaraan ay soo dhaweeyaan maadaama qof baraha bulshada caan ka ah uu yahay dadka Soomaaliyeedna gaar ahaan ay taageersan yihiin hadduu soo sheegi lahaa ay soo dhaweey lahaayeen. Laakiin Haykal oo dhankiisa safarkan uu ku imaaday magaalada Muqdisho uu kadis ah uu qoftiisa boo xiriir kala dhaxay aysan ogeyn maadaama haday ogaaleed ila boorka ugu soo hormarleed ay soo dhaweey lahayd. Haykal oo ka soo kordhacay Maariya Abshir oo qoftiisa boqorada isteelka kadisna ugu imaaday. wixii fikir aad ka qabtid qaybta commentiga noola wadaag. muuqaalada xiga ayaa ku kulmi doona. sidaas ayaan iga tageynaa. mac salaama.